maan guursadeen qaybta koowaad haddii aan noqon lahaa gabadh Soomaaliyeed maan guursadeen nin Soomaaliyeed haddii aan guursadana waxba uma dhaleen odhaahdan xanafta iyo xajiinta miidhana waxaa tidhi baa igu maqaalo ah gabadh cad oo ah kalkaaliso ka shaqaysa qaybta umulaha ee cusbitaal ku yaal Sweden haddaba maadaama aan ahay nin Soomaaliyeed hadalkani wuxuu igu riday xanaaq iyo xayraan wada socda waxa uu hadalkaasi igu dhaliyay weydiimo badan oo ay ka mid yihiin tolow ma gogasha ayay ku salugtay mise gooska ma garashada mise gacan fudaydka dumarka Soomaaliyeed si odhaahdan sidee bay u arkaan weydiimahan dhan aan u qaado aniga oo garan la ayuun buu eebe igu ilhaamiyey miyaad caawaba xaaskaaga weydiisid aragtideeda ku aadan odhaahdan bal si aad arrintaba ugaba gungaadhid haddaba cawaystimceed ayuun bay ahayd markii aan iridka gurigayga garaacay ee ay iga furtay oridaydii oo indha kuulan dabno guduudan da yaraanina ka muuqato bariido aan diiranayn kadib markii aan gudaha sii galay waxa i qaadaa dhigay caraf iyo udgoon oo meel aan joogo intaan garan waayey ayaan is idhi tolow ma ku boodaa laakiin waxaan samayn lahaaba waxaan ka baqay qabay in ay carruurtu soo jeedo waayo habeenno badan bay iga gaagixiyeen kalaabto haddaba qolalka markii aan fiiriyey ee aan ogaaday in ay gelin horeba seexisay ayaan uurka ka farxay hoostana ka qoslay ogaadayna in ay jimce tahay sidiisaba jimcaha sharci baa ka yaalay sida dhaqankeenna ku cad haddaba hawlii ha ii dambaysee weydiintii igu mudnayd ayaan dirqi ku xasuustay oo aan u bandhigay xaaska inta ay iga akacday ayay igu tidhi waa runteed waanay saxan tahay amba nin Soomaaliyeed haddaan sidan moodayo ma guursadeen yaab dareenkii hami ee igu abuurnaa inta uu hoos u dhacay ayaan ku idhi oo hadda wada joogeenna miyaad ka xun tahay inta ay foorarsatay ayay tidhi kamana xumi kumana faraxsani waar bal in kaartan kaalaya naa 10 sano ayaan ku qabay oo 5 carruura ayaad ii leedahay ee maxaynu ku wada joognay hadda waynu iska wada joognaa uun ayay si quusi ka muuqato iigu jawaabtay waynu iska wada joognaa uun hadal maaha ee maxaad iga tabanaysaa aniga ayaan si xog raadin ah u weydiiyey haddii aan kuu sheego ma kol baad qaadanaysaa ayay iyada oo shanta dhabanada ku haysa ina soo eegaysa tidhi waan qaadanayaa ee ii sheeg saytuun ayaan si quudarayni ka muuqato ugu idhi saytuun waxaan ugu yeedhaa marka aan xodxodanayo rabana in ay wax ii sheegto ama wax ii siiso inta ay si wanaagsan u soo fadhiisatay ayay hadalkii ku bilowday horta caawa habeen aad ka wanaagsan tahay ma aan arag intii aynu wada joognay waayo waxa iiga kaa muuqda danayn iyo dabacsanaan badan taas baana keenaysa inaan uurkayga kuu dooxo oo aan tabashadayda kuu soo bandhigo maalintii aan ku guursanayay waxaan islahaa wuxuu kuu noqon hooyo aabbo walaal iyo wehel rumaad waxaan islahaa cidlo dambe dareemi maysid iishoon maysid cabashana hadalkeeda baddaa waxaan islahaa wuu kula kaftami wuu ku koolkoolin waanu kuu kaalmayn waxaan islahaa wuu ku dhegaysan wuu ku dhaqaalayn wuuna kuu dhego nuglaan waxaan islahaa wuu ku maamuusi wuu ku marxabaysiin waanu ku macsiin mar walba waxaan islahaa wuu ku daadahayn wuu ku dalxiisgayn waanu kula dawaafi waxaan islahaa wuu kula damqan wuu kula digigixoon wuuna kula diirnixi waxaan islahaa wuu ku caawin wuu kula cawayn wuuna kula ciyaari waxaan islahaa waad ku faani waad ku farxi waanad ku fantasiyeyn waxaan islahaa wuu ku raaligelin wuu ku raaxayn waanad ku rayn waxaan islahaa wuu ku naxariisan wuuna ku nasin waxaan islahaa wuu kula tashan wuu ku tilmaami la soco qaybta xigta waxaa qoray Axmed Deeq qoraa jacayl